Ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan ayaa ku howlan sidii ay u keeni lahaayeen hogaamiyihii bedeli lahaa Xasan Nasrallah oo duqeyn cirka ah ay Israel ku dishay duleedka magaalada Beirut Jimcihii. Ururka Xisbullah waxa uu sheegay in ay sii wadi doonaan dagaalka ay kula jiraan Israel isla markaana ay taageeri doonaan dadka reer Falastiin. Haddaba waa kuma qofka la filayo in uu bedeli doono Xasan Nasrallah? Waxaan eegi doonaa taariikhdiisa oo kooban iyo waxa uu yahay, iyo dabcan wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan duqeymaha ay Israel ka wada Lubnaan iyo Gaza. Ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan waxa ay sheegeen inay dooran doonaan qofkii bedeli lahaa xogayihii guud ee la dilay Sayid Xasan Nasrallah, waxayna sii wadi doonaan dagaalka ay kula jiraan Israel sida ay sheegeen. Warkaasi waxaa laga soo xigtay ku-xigeenka kooxda ay Iiraan taageerto ee Naciim Qaasim, waa dabcan ku-xigeenka ururka Xisbullah. Waxaa hadalkan uu ka sheegay khudbad uu ka jeediyey telefishinka, waana markii ugu horeysay oo uu soo muuqdo sarkaalkan ka tirsan Xisbullah tan iyo markii Nasrallah lagu dilay Jimcihii weerar cirka ah oo Israel ay ku qaaday duleedka koonfureed ee caasimadda Lubnaan. Waxa uu yiri, waxaanu dooran doonaa xogayaha guud ee xisbiga marka ugu horeysa iyo sida ugu dhaqsiyaha badan, waxaana si joogto ah aan u buuxin doonaa hoggaanka iyo jagooyinka, ayuu ku daray Qaasim oo ka hadlayay meel aan la shaacin halka ay tahay. Qaasim waxa uu sheegay in dagaalyahanada Xisbullah ay sii wadi doonaan gantaalada ay ku ridayaan meel ilaa 150 kilomitir u jirta dhulka Israel, isla markaana ay diyaar u yihiin weerar kasta oo ay suuragal tahay in Israel ay dhinaca dhulka kaga soo qaado ururkaasi Xisbullah. Waxa aan sameynayno waa waxa ugu yar, ayuu yiri. Waan ogahay in dagaalku uu dheeraan karo, waan ku guuleysan doonaa sidii aan uga guuleysanay xoreynta sanadkii 2006 annagoo ka hortagnay cadowga Israel, ayuu raaciyay hadalkiisa. Waxaana uu tix raacay iska hor imaadkii ugu dambeeyay ee dhiigga ku daatay ee dhex maray labada dhinac. Dabcan ninkan la yiraahdo Qaasim oo ku baaqay in loo sabro ama in taageerayaashu ay sabraan ayaa sheegay in Xisbullah ay xilligan la tacaaleyso sidii ay u bedeli lahayd ama ay usoo bandhigi lahayd mas-uuliyiinteeda cusub wixii ka dambeeyay dilka Xasan Nasrallah oo ahaa dharbaaxo aada u weyn oo kooxdaasi ku dhacday. Waxaa sidoo kale uu ku eedeeyay dalka Mareykanka in ay taageero buuxda u fidinayaan Israel. Haddaba hadalka ninkan waxaa laga dheehan karaa in Xisbullah ay xilligan ka go-an tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u buuxiso booskii Xasan Nasrallah iyo saraakiishii kale ee ku dhintay weerarkii Jimcaha ay Israel ku dishay madaxdii ugu sarreysay ee ururka Xisbullah. Geerida marka Xasan Nasrallah kadib, waa kuma qofka la filayo in uu la wareegi doono xilkaas? Waxaa lagu wadaa in xilka uu ka geeriyoodo Xasan Nasrallah oo da-diisu ay ahayd 64 sano jir uu bedeli doono nin aada ugu adag afkaarta xisbigaas, isla markaana loo filayo ama la maleynayo inuu yahay qofka buuxin kara booskii uu soo waday Xasan Nasrallah 32 sannadood ee lasoo dhaafay. Ninkan waa nin ay ilmo adeer yihiin Xasan Nasrallah, waana nin loo arko in uu si weyn dib boorka uga jafi karo ururkaasi Xisbullah. Waxaa lagu magacaabaa ninkan Sayfuddiin ama Hashim Sayfuddiin. Waxa uu ka mid yahay ragga xilligan ugu cadcad ee loo maleynayo in ay buuxin doonaan booska uu ka tegay hogaamiyihii hore ee Xisbullah. Sayfuddiin waxa uu ku dhashay tuulo koonfureed oo ku taala Lubnaan oo la yiraahdo Daar Qanuun El Nahr sanadku markuu ahaa 1960. Ninkan iyo Xasan Nasrallah waxa ay si wada jir ah u barteen cilmiga fiqiga oo ay ka barteen 2 machad
oo shiicadu ay leedahay. Mid waxa uu ku yaalaa magaalada Najaf ee dalka Ciraaq, midka kalena waxa uu ku yaalaa Qom oo Iiraan ah. Waxaa loo arkaa inay ka soo jeedaan labadaba qoys shiico ah oo si weyn loo ixtiraamo, oo weliba ay soo saareen culimo iyo siyaasiyiin fara badan oo dalkaasi Lubnaan ah. Sayfudiin walaalkiis ama aan idhaahde Sayfudiin walaalkiis waa wakiilka Xisbullah ee Iiraan, halka wiilkiisana uu qabo gabadh uu dhalay Qaasim Suleymani oo ahaa generaal u dhashay dalka Iiraan oo lagu dilay duqeyn dhinaca dayuuradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka sanadku markuu ahaa 2020. Xilligaas waxaa Mareykanka madaxweyne ka ahaa Donald Trump. Sayfudiin wuxuu ku biiray Xisbullah wax yar uun kadib markii la aasaasay sanadkii 1980 horaanteedii. Sayfudiin oo aad loogu arkay inuu u eg yahay in adeerkiisii la dilay ee Xasan Nasrallah, waxaa xilligan loo badinayaa inuu ku guuleysan doono ololihiisa dhinaca hogaamineed ee xisbiga. Waxaana sidoo kale khubaradu ay sheegayaan in hadda uu yahay ninkan qofka ugu cadcad ee la filayo in ururkaasi ay u magacaabaan booskii uu ka geeriyooday hogaamiyihii hore. Ninkan waxaa lagu yaqaanaa nin aad iyo aad ugu adag afkaarta ururka. Waxaa kaloo uu u qaabilsan yahay ururka arrimaha siyaasadda. Munaasabad dhowaan ka dhacday magaalada la yiraahdo Dahia oo toddobaadkan ay ka dhacayeen duqeymo dhinaca cirka ah, waxa uu ka sheegay oo uu ninkani sheegay in ay mar walbaba taageeri doonaan Xamaas. Waxa uu yiri taariikhdeena iyo hubkeena iyo gantaaladeenuba waxa ay la jiri doonaan dadka reer Falastiin. Mareykanka ayaa Sayfudiin waxa ay ku dareen liiska argagixisada sanadku markuu ahaa 2017. Dalka Sacuudi Carabiya ayaa sidoo kale ninkan ku daray liiska argagixisada. Waxa uu had iyo jeer ahaa nin si weyn u naqdiya siyaasadda Mareykanka, isaga oo sanadkaasi ku dhawaaqay in maamulka Mareykanka ee waalida ah ee uu madaxa ka yahay Donald Trump aanu awoodi doonin in ay waxyeello u geystaan iska caabinta, sida uu hadalka u dhigay. Israa'iil ayaa dhinaca kale haddaanu eegno waxa ay weeraro culus maanta ka geysatay magaalada Beirut, halkaas oo ay ku dishay 3 xubnood oo ka tirsan jabhadda caanka ah ee xoreynta Falastiiniyiinta. Wasaaradda caafimaadka ee dalka Lubnaan waxa ay sheegtay in weerarada Israa'iil ay ku dhinteen 105 qof 24 saacadood ee lasoo dhaafay, iyadoo diyaaradaha dagaalka ee Israa'iilna ay weli sii wadaan duqeymaha ay ka geysanayaan guud ahaan dalkaas. Israa'iil ayaa sidoo kale waxa ay sii wadaa weerarada ay ka geysanayso marinka Gaza, halkaas oo ay ku dishay ugu yaraan 28 qof oo Falastiiniyiin ah. Dhinaca kale, ciidamada cirka ee Israa'iil ayaa beegsaday xarun koronto iyo dekedo ku yaala magaalooyinka degadaha ah ee Yemen ee Xudayda iyo Ras Ciisa, halkaas oo la sheegay inay ku dileen ugu yaraan 4 qof. Magaalada Gaza iyo guud ahaan dhulka Falastiiniyiinta, weeraradii muddaba socday waxaad moodaa inay yihiin kuwo inta badan ay waxyeello xoogan ka soo gaarayso dadka rayidka ah. In ka badan 41,000 oo qof oo dad rayid ah ayay Israa'iil weeraradaasi ku dishay, dad ka badan 96,000 oo qofna waa ay ku dhaawacmeen. Dhinaca Israa'iiliyiinta, dad ka badan 1,000 qof ayaa looga dilay tan iyo Oktoobar 7 wixii ka dambeeyay, ilaa dad ka badan 200 oo qofna waa laga afduubtay. Marka guud ahaan markaad eegto xiisadahan soo kordhaya ee bariga dhexe iyo iskoorimadyada kusii baahaya gobolka, waxaad moodaa inay yihiin kuwo xilligan wajiyo cusub yeelanaya, khatartoodana leh, suuragalna ay tahay in saameyn aad u xoogan ay ku keeni doonaan guud ahaan gobolka iyo dadka ku nool dhulkaas.